قدومي warkaas wax ka jira ma jiraan waa been abuur wax aqli balaadka gali karo ma aan qof sarkaal oo mas'uul inuu wax qaldan oo sabab qaldan oo qof u diri karo wax ka baxsan nidaamka ciidanka ma jirto hal xabba kama jirto mudane gudoomiye mid aniga la iga sii sheegi doona ka sii dambeeya kaas oo rasuulkiisa saaran lagu dhihi doono maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukunno kala duwan waxa ay ka soo saartay taliyihii saldhigga degmada Hiilwaa Dhame Cabdi Fataax Maxamed Xasan Quslaaye iyo kooxdiisa oo uu ka mid yahay qof maqana ah kuwaas oo ka wada shaqeeyay dilka Allah u naxariistay marxuun Abuukar Axmed Kaabax falkaas oo dhacay 22 bishii Febraayo ee sanadkan aynu ku guda jirnay 2024 kooxdan oo ka kooban 6 qof ayaa Quslaaye waxa uu ku wehlinayay kiiskan Dablebol Maxamed Cabdi Qoone Liibaan Maxamed Axmed oo ah maskaxdii ka dambeysay dilka Xasan Maxamed Saciid Dindin Maxamed Cadaawa Cali iyo Yaasiin Cabdi Jaamac baaris dheer kadib xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa codsatay qaadista kiiskan fadhiyo kala duwan maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada ayaa xukunno kala duwan ka soo saartay kiiskan 6 Abriil ee sanadkan balse xukunsanayaasha ayaa racfaan ka qaatay xukunnadii lagu riday maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa aqbashay dalabkii racfaan ee ay soo qaateen xukunsanayaasha 10kii bishan waxaana waqti ku filan ay siisay dhinacyada dacwadda iyadoo ugu dambeyn maanta xukunno kala duwan ka soo saartay kiiskan 1 Ekis Dhame Cabdi Fataax Maxamed Xasan Quslaaye taliyihii saldhigga booliiska degmada Hiilwaa 2 Ekis Dablebol Maxamed Cabdi Maxamed Qoone ayay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya xukun dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuun Abuukar Axmed Kaabax ku xukuntay 3 Liibaan Maxamed Axmed oo maqana ah ayaa lagu xukumay xabsi daa'im halka Maxamed Cadaawa Cali 5 Yaasiin Cabdi Jaamac 6 Xasan Maxamed Saciid Dindin ay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ku xukuntay min 10 sano oo xabsi ciidan ah sida uu warbaahinta u sheegay sareeyo guuto Liibaan Cali Nuur gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya kiiskan ayaa waxa uu ahaa mid hadalhayn badan dhaliyay waxaana indhaha ku hayay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo laga dhowr sugayay qaabka ay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya u maareynayso maadaama kol hore maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ay xukunno la mid ah kan maanta ay soo saartay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya ay soo saartay